qisada waxay runtii ka dhacday dalka Talyaaniga nin muslim oo markaas soo islaamay oo Ahmed la ilaahdo ayaa qisadan ka sheekeeyay waxa uu yiri waxaan ahaa buu yiri 3 jir baan ahaa buu yiri aabahay uu dhintay buu yiri hooyo iyo inaan walaalnahay oo kaliya ayaa jooga buu yiri anigu wuxuu yiri waxa aabahay iiga tagay maal aad u fara badan daaro baabuur wax maal oo dhan buu ilaahay iiga tagay dadka ugu qaniisan ma kamid aha meesha aan deganeen buu yiri waxa dhacay buu yiri nolosheedu waxay ahayd buu yiri inaan lacagtaas ku raaxaysto wax kastana aan qabsado wax kastoo isla adduunka waa macaana inaan helaba ay ahayd buu yiri wuxuu waxa dhacday buu yiri guriga markaan imaado buu yiri anigoo mukhadaraad isku soo talaalay anigoo khamri soo cabay mukhadaraad ka soo dhigraan iman jiray buu yiri markaan guriga imaado waxa ugu horan qaban jiray waa maxay buu yiri hooyaday baan dilay buu ayaan dilay jiray buu yiri hooyaday waan dilay jiray buu yiri oo waxba la dhac jiray buu yiri markii dabada u baxna waxaan ku jirayun nolosha aad arkaysaa ee runtii macaanka adduunka u badan ay ku jiray buu yiri laakiinse waxaan dareemi jiray buu yiri runtii gunteeda waxa ka dareemi jiray buu yiri runtii deganaansho la'aan iyo qaraad baan ka dareemi jiray waxa dhacday buu yiri maalin kamida ayaan maqaaxi soo fadhiistay koob shaahan dalbaday jareedna waan soo qaatay anigoo koobkii shaaha cabaya ayaa nin baa soo diristaagay ninkii baa wuxuu yiri waniyo 100 shilin oo lacagta Talyaaniga ee amaahi anigoon eegin baninka oo si fiirsan ba hadalkiisii ayaan tan 100kiisii aan ku yiri war hoobaan ku yiri oo lacagta wax badan ma aha waxna weydiinaysaa lacagtii buu qaatay buu yiri lacagtii markuu qaatay bilima ka soo wareegtay ayuu ninkii iyimi buu yiri markuu uu yimi wuxuu igu yiri war hooniyo 100kii aan ka qaatay waniga ku soo celiyaho markaasaan ku qoslay waxa ka hadlaysa waxaan ku ribu yiri $100 aan ku siiyay lacagtan 100 shilin Talyaaniga wax weyn ma aha waxa ii soo celiso oo ka fakirto oo saasaba ma baahaba marka waxaan inaad soo celiso ma baa loo baahna wuxuu igu jawaabay buu yiri war aniga diinteeda ay amraysa hadaan deen qaato ama ha yaraato ama ha badnaatee inaan soo celiyo waqtigeedana ku soo celiyo inta markuu igu yiri waxaan ku yiri oo diintaasi waatee markaasii wuxuu ugu jawaabay diintaasi waa diinta islaamka marka inta markii ugu diinta islaamka weeyaan baa waxaan ugu jawaabay yiri war diintaasi naga daamaha saad sheegayso waa diin irhaab iyo dagaal ka sheekeynaysa inta markaan ku yiri wuxuu ugu jawaabay war mee sida maahe diintan islaamku waa manhaj xayaa waa nolosha adduunka tii xukumaysay ee la isku maamulayay ee loogu talagalay weeyaan cidda sida saxda u dabaqda وانا السعاده هذو قف قاطو دريميا الراحه نفسيه يا سعاده دريميا انت مركو يمي با نفتيد wax ku soo badan biir markuu yiri saacada iyo raaxad helaysa ay nafteedu hal mar soo bodo biir sababtoo waxaan raadinayaa biir adduunka aan haysto dhan waxaan ku furanayaa biir inaan hal mar helo iyo saacada inta markuu igu yiri ayaan ku maxaad haysataa markaas wuxuu gacanta ku haysay waraaqo islaamka ka sheekeynaya waxaan ku ribo waraaqaha balidib waraaqaha baan ka qaato way yaraayeen buu yiri markuu iga baxay baan hogor warintana way yartahay waraaqa kana baliikeen soo wuxuu ugu jawaabay maalin kasta ana waraaqa kugu filan ku keenaya waxaan bilaabay yiri waraaqaha yaryara ay ka qaatay inaan akhriyo maalin kasta aan akhriyo wuxuu yiri markuu maalin kasta waraaqa ay keeno 10 waraaqood oo notes ah marka aan dhameeyay ayaa islaamka ugu duxay buu yiri islaamka igalay islaamka markuu igalay baan ku yiri waan islaamaya markaas waxaan tagabiyay markaskii islaamiga ahaa ee meesha ugu dhawaabaan tagabiyay waan islaamiyay markaan islaamay in gurigayga ku noqday ayaa hooyaday oo markayga hore markaan guriga soo galay aan dili jiray maxaan sameeyay buu yiri markaan guriga soo galay waan dhunkaday buu yiri dhowr cisho ka bacdi markaan guriga soo galaba hooyaday waan dhunkada maalintii dambe hooyaday iyad waxay ku tiri hooyo maxaa kugu dhacay awal maalin kasta guriga markaad soo gasho waadi dili jirtay maantana waxaad bilowday markaad guriga soo gasho inaad dhunkato markaas waxaan ugu jawaabay hooyo diinta islaamka qaato waxa oranaaya inaan ka dhalinyarta Ahmed markaas waxa ku tiri oo hooyo ma islaamka sida ku amray inaad dhunkato markaas hooyo islaamka ay amraya inaan ku dhunkado iyo inaan ku wanaag faraba ku sameeyo wanaagba islaamka ay amraya markaas tiri hooyo hadaba aniguna islaamkan galaya islaamku sida yahay ana waan galaya halkiiba hooyada ku islaamtay biir hooyada marka islaamtay biir
wixii guriga ku dhajisnaa ee kaniisada waxa ka wada fuqiyay diintii Allah baa ku wada dhajiyay buu yiri laakiin guriga waxa joogta walaashay oo wali gaalada buu yiri waxa dhacday buu yiri kitaabkii quraanka oo Talyaani lagu turjumay ayaan soo qaatay buu yiri gurigan soo dhigtay buu yiri maalin baa guriga soo galay buu yiri waxaan arkay walaashay oo buugi akhrinaysa kitaabkii quraanka ahaa ee Talyaaniga ku turjurnaa iyadoo akhriyaysan soo galay waliba si khushuucsan u akhriyaysa oo is ogeynba caalamka halkii joogtaba oo ku mashquulsan kitaabkan wuxuu kamaan dhaxgelinba aayar baan iska baxabiir walaashay kitaabkii marka xooga akhriday muddo yara akhridayba waa islaamta anigoo kalmad u sheegin anigoo islaamka soo galay ay walaashay islaamta gurigayga sidii ku wada islaamay biir maanta wuxuu waxaan rajaynayaa nolosheeda inta ka harsan oo dhan in diinta islaamka ugu gargaaro